tan waxaan ii rajaynaa caafimaad fiican iyo dad muslimiin oo fiican oo caalamka dhan la socdaan wax ay walba fahmaya adduunkan ka socdo. Maanta waxaan ka hadlaynaa topican wuxuu ka hadlayaa complex wax la dhaho PTSD, trauma and recovery. Learn how trauma affects self-esteem and the stages for dealing with PTSD, symptoms, regaining emotional balance and control of your life. Els van der Klok. Well, this is a Dutch company. Marka waxaan rabaa inaan ii sharaxo cudurka dadka maskaxda ka qabta waalihda noqoto ama PTSD waxa la dhaho post traumatic syndrome waxa la dhaho waxyaalo badan oo mafaqanta hadda dadka Soomaaliya degan aan for example niiga sheekeeyo waxa kamid ah hadda 30 sano la soo dhaafay Soomaaliya dadka shacbiga ku dhex noolaa waxay ku jireen dagaal rafaad dhibaato lacag la'aan cunto la'aan diin la'aan marka waxay keenaysaa waxyaalahaas oo dhan in dadka qaarkood ee boqolkiiba boqol ahayn oo dad waalan ay iska noqon karaan because waa waalan kartaa askarta Ameerikaanka ah oo weligood nolol fiican ku jireen wadan fiican ka yimaadeen oo economic wax walba leh cunto fiican leh marka ay dagaalka tagaan Afghanistan oo kale ama Iraq oo kale markay tagaan dhowr bilood soo dagaalamaan ay soo noqdaan America soo noqdaan dad waalan ay noqdaan way waastaan marka dhakhtarra iyo balaaya u joogta caawinay learn how to cope with post traumatic stress disorder consequence of trauma war loss by helping yourself with breathing and meditation techniques marka waxyaalahan waa in la fahmaa madaxii oo xirmay oo quful uu galay oo la rabo in aad si fiican dad wax u soo barteen oo yaqaan aniga oo aan soo baran post traumatic trauma syndrome iyo waxyaalahan oo kale ay yaqaan sida loola dhaqmo dadka fiiriya dhakhtar inaan furtaama jeclaan lahaa hadda aniga oo Soomaaliya aan ka sameynaa waxyaalahan oo kale dadkeena aan ku caawinayo ma fahansantii walaalayaal because annaga waxaan dhan ma lihin annaga trauma ma naqaano dadkeena sida loo caawiyo ma naqaano waxyaalaha aan ku sameynayna dadkeena waalwaalan fiir iyo caalamka waxay ku sameynayaan Europe oo kale wiilkan hadda post traumatic syndrome oo ku jira laba dhakhtar ah ag fadhiya waa la dhageysanayaa waxaa la ogaanayaa dhibaatadii ku dhacday why is this person in distress maxaa ku dhacay sidee baa loo caawin karaa maxaan u qori karnaa si jid waa la helayaa hadda ijaar because dadkan waxbay barteen soo maaha marka meel walba cognitive processing therapy for PTSD si walba u jiranta xataa handicap hadaa tahay waa lagu caawin karaa dadka waalan xataa waa la caawin karaa ogaada dawa hadda loo soo helo wax walba way jiraan Soomaalida laakiin waxaan ma og tahay fiir cunuga Soomaaliga haduu maskaxdiisa yariista ee boqolkiiba cunug yar waay aabihiisa xuna laga yaabaa waa la dilaa maalin walba dhibaata haysato caalamka ma fahansana marka fiiri meeshana lagu xiray cunugan yarka fiiri xabsiya la geliyo fiiri yaab ma aho waa nii soo socdaa videoga waa daawan doontaan labada dhaqan sida madowga muslimiinta wadankeena Soomaaliya oo kale sidee ula dhaqmaan dadka noocaasa iyo dadka cadaanka gaalada ah sidee ula dhaqmaan dadkooda waa arki doontaa dadkan beentooda inay tug yihiin Soomaalida ee muslimnimada isku qariyaan kaliya ee wax aqoonin waxba baran weligoodna waxba fahmeen ee qofka ixtiraameyn haduu xataa dhibaato ku dhacday waa lagu qoslayaa waxa la leeyahay ma is adkee kaliya ay yaqaanaan iyaga maxaa waay darbi miya dhagax miya qofki uu ka samaysan yahay maya waa kana wiilashan post traumatic syndromes ku wada jirta waxyaalo badan oo handicap fiiri lugaha laga xiray lugtiis inay xiranta ma aragta cunugan si fiican u fijigiis u fiiri nin la caawin karo waa fiiri easy loo caawin karaa fiiriya ma fahansantahay fiiri lugaha laga xirxiray duurkaas iska dhex joogan fiiri lugta inta laga xiray meel looga tagay fiiri meeshaas lagu dhimana waa la dilaya fiiri dilitaana lagu xukumay waa fahmaysaa umaleynaya waa kana cunugan yarka fiir Soomaaliya waa meeshan fiiriya Soomaaliya fiiri cunugan yariiska fiiri geeda lagu xiray luga malaa waxba malaa xogaa yariis maskaxda leeyahay qof fahma sida oo PTS wax u soo bartay dhakhtar inuu u sameeyo waxaan kale uu baro gabdhaheeni way buuxaan Europe dhakhtarro oo waxyaalo badan oo wax soo wada barteen oo laakiin wadankoodii ma tagi karaan oo dadkoodii ma caawin karaan because way ka kibreen waa dad oo raba inay cadaanka dhex joogaan oo rabaan cadaanka inay iska dhex caawiyaan kaliya iyaga wadankooda ma shaqeeyaa wax ma ka taray laakiin mid kale jirtana dadka wax soo barteen oo gabdhaha wax yimaada wadankana waa la dilayaa nin al-shabaab la dhaho oo jooga oo dhahaaya dawladda yani waxa tahay gaala soo noqotay
gaalaa soo noqotay marka waa ku dilaa marka cunugan isaga ma caawinayo derbiga ku xiraa lagu kaga xiraa fiiri marka caqliga dadkeena muslimnimada saan miya marka been ma aho waxaan oo dadkan dad aan iyaga naftirkooda boqolkiiba boqol muslim ahayn ma aho waxaan ya marka waa aniga waxaan rabaa caqligiina inaad topican aad ka fakartaan iisoo qoro waxa iisoo qortaan comment sectionka waan isugaya fiiri wiilashan soomaalida sida loo galay ninkan wax dhibaato ma haysato maskaxda xoogaa yariis in lala hadlo lala sheekaysto loo u baahaya waxaan ku tusinaya dadka caddaanka see ula dhaqmayaan marka dadkooda fiiriya waa ku tusinaya waa kuu soo wadaa fiirso isug inta aan kaa tusinaya horta dhinaca soomaalida waxay ku samaynaysa dadkooda waa kanaa ninkaan fiiri soomaali waaye meelaa lagu xiray fiiri dhagaxaan weyn lug iyo balaayo ugu xiraya meeshaana u joogaa fiiri koobka biyaha lagu siina xataa nadaafad ma laha fiiri يا الواح على وحر ميلا لسكتي نقول شيء صدق ماشى سكوت ما سنة ماشى سكوت منايا واكره حبسي يكون الجيران ديري ضد فيوه ولي بكون ما به واحد نبات ما بوست تروماتيك سيندروم أو حن مكودعين حوجا يريس لأبهي إن العاوية فيري ماشى لو حر فيري ماشى لو حر فيري ما يابي سيدو أديك فيري نجحنا أنت لحد جاي كل جود silsilad lagu wada xiray fiiriya caalamkii laga qarinaya reerkooda way ka xishoonayaan haddana muslim ay isku sheegayaan fiiri marka aan ka noqono marka caddaanka say u galayaan dadkooda fiiri waa lagula fadhiisanayaa programma lagu barayaa waa lagu sharaxaya waa lagu dhageysanaya waxa ku haay marka la fahmo dawo yariisa lagu siinaya kuweenan sida loo galay waa aragtaa marka hadda fiirsa marka ciila ay qabto maalin walba marka arko dadkeena xamaraan dhex tagay waa soo arkay wallahi ciila ku qabanay marka aragto waxa meesha dad oo la bahdilay oo la xumeeyay iska dhex joogaan meesha oo derbi inta lagu xirto la leeyahay iska socsoco maba soconka derbi inta lagu xirtay meel qofku waa lacag ku qaadanaya wuxuu u qabanaya male xaasid waaye dadkeena dad xun waaye dadkeena dad aad iyo aad u xun waaye walaalayaalo aad iyo aad u xun yihiin waa jaahiliin waa cawaan waa wax aan ilaahay aqoonin oo ilaahay aan ka baqayn fiiri marka sida loo daweeyo dadka So, you've been diagnosed with PTSD, post-traumatic stress disorder. You might be thinking, does therapy for PTSD really work? Or what about medications? Well, there are treatments that work and you have choices. We're going to show you PTSD treatments that... labada therapy iyo dawo la isugu daraya fiiriya therapy waxa waa bani aadamni xayawaanada wax walba oo therapy lagaaga sameyn karo medication waa dawada laba la isugu daraya qofka jiran oo wareersan which means they've been proven to work in multiple scientific studies. Two of the most effective PTSD treatments are cognitive processing therapy and prolonged exposure. Both are cognitive behavioral therapies, CBT for short. CBT is far from just talking. You'll learn skills to manage your PTSD symptoms. laba nooca lagu daweyn karaa oo wax oo la og yahay ba la hubo in la soo baaray oo dadka lagu caawiyo mid waxa waa dhakhtarka kula hadlay qofa lagu kireynaa oo kula sheekaysanaa oo kula hadlaa oo sheekadaada ma fahanti bani aadamnimadaada soo celinay ma fahantay meesha kalena waa arkaysa hadda midig waay Processing therapy teaches you how to change negative thoughts about your trauma, which can have a big impact on how you feel. Prolonged exposure helps you confront memories and situations you've been avoiding since kasoo qaad dumarka la xoogay dadka la dilo oo iyagoo ciyaal yar la dilay sidii loo dilay maskaxdooda ee wareerto oo stress uu ku dhaco ma fahantaa nooc walba waa laga caawin karaa. This gets easier with time and eventually you won't need to avoid them. Another effective therapy is EMDR, which involves thinking about images and feelings that distress you while doing rapid eye movements. This can help you change how you react to trauma memories. Therapies like these usually take 3 to 4 months of weekly visits, and improvement can last for years. Medications are another effective option.
The best medications for treating PTSD symptoms are antidepressants, specifically SSRIs and SNRIs. Antidepressants work by helping brain cells communicate better. waxaa dawaa jirta xataa oo madaxa meesha laga haayo toos u tagaysa oo waxyaalo fiican ku tusinaysa oo negative-ka ah ku jirta ka saaraysa waxyaalo badan aa jira oo lagu daweyn karo because dadka cadaanka mar hore waxaan soo barteen way yaqaanaan dadkooda saasay ku caawiyaan waa fahmaysaa u malaynaya And that can make you feel better. Improvements in your PTSD symptoms will last for as long as you keep taking them. You might have heard about benzodiazepines or benzos. In the past, doctors prescribed these anti-anxiety medications for PTSD. New research shows anti-anxiety medications may interfere with kaniiniyaal fiicana jira soo baxay oo la dhaho benzodiazepines laakiin benzo for short ma fahantay kaniiniga arkaysa hadda lagu xayeysiinaya waaye therapy and do not improve PTSD. These medications can also lead to harmful side effects like confusion, fogginess, and accidents or falls. If you're taking benzodiazepines or other medications with potentially harmful side effects, like atypical antipsychotics, talk to your doctor about whether you should safely stop them. There are more effective options for PTSD. It's common to have other problems at the same time you have PTSD, like chronic pain, depression, substance abuse, a history of traumatic brain injury, or insomnia. adiga oo PTS qaba waxyaalo kale kugu dhici karaan jir xanuun lafo ku xanuunay depression waxa la dhahaa yani sheekadayda ka xumaato lacag la'aan kugu dhacdo gaajo kugu dhacdo oo kaliya jir meel inta isku xirtid markaas kaliya maskaxdaada isla sheekeysanayso way halaabaysaa marka si xun jid xun ay ku sii gelinaysaa insomnia waxa la dhaho substance abuse adigoo drugs iyo mukhadaraadka iyo jaadka iyo khamriga isku dhex daray waxyaalo badan oo dadka bani aadamka maskaxda ka haleyn karo taas Often treatments effective for PTSD can help with these problems too. In other cases, your doctor might suggest an additional treatment. For example, there's a special type of cognitive behavioral therapy called CBTI. The I is for insomnia. CBTI teaches you skills that can improve your sleep, even after just a few therapy appointments. Some antidepressants can help with sleep too, and there is a dadka hurdo la'aanta insomnia waa hurdo la'aanta fakarka badan mashquulka madaxa noqonayo adigoo raba ina gacmahaaga dhaqdid maskaxda intay wax kale kugu dirto meel kale aadaysa dad noocaas way jiraan wax walba waa laga daweyn karaa maanta medication called prazosin specifically for nightmares. So, where do you start? Talk to your provider about which effective treatment options are right for you. Therapy yaa la hadle marka cadaanka way yaqaanaan xafiiska ay tagayaan ee waxaas iska daweyn karaan laakiin adiga Soomaaliya yaa la hadle yaa lugta laga xiraaya darbiga lagu agdhigaya waa dhamaatay waxa lagu leeyahay adkee yaa dadkeena saasi cawaan u yihiin waa fahmaysaa u maleena jaahilka adduunka waa dadkeen fiir ciyaalkan luga la'aanta gacmo la'aanta sida loo caawinayo fiir sabal If we are to really understand our future in the health system, we should be studying population and migration trends. We should be surveying and wiil Soomaaliya waay Holland Bloor View ala dhakhtarkan Kids for ciyaalka loogu talagalay wuxuu ku yaalaa Toronto Canada laakiin programka Holland laga keenay waxa waay Hollandeeska programka ilmahooda ku caawin jireen hadda Canadeyskana way furteen ma fahantay wiilka Soomaaliya waa meesha ka shaqeeya of our newcomer populations because they're suggesting and predicting a future for Toronto and Ontario and in Canada that'll look very different than the future today. ciyaalka meesha joogan fiiri All families are unique, but I think particular to newcomer and immigrant families, and we see really a common ground is that they're having to navigate multiple systems all at once. They're having to navigate healthcare, then things like housing, for example, is another system that they're having to navigate, education, employment, income security programs, sometimes even other aspects too, like food security programs, child welfare. The
because the newcomers may not necessarily know the services that are available to them, or they may not know what services they actually need. Their perspectives of a disability, their definition of a disability, what can be done, can't be done, is very different than, say, our Western society. fiiri ilmahaas sida loo caawinayo. Many of our newcomers have a diagnosis of spina bifida. We've had families that have actually come from refugee camps. qaxooti waaye. There was no health care available. So if their child couldn't walk, they gaalaa caawinaya fiiri ka soomaaliga wuxuu ku caayaya gaal waaye dadkaas gaalo waaye isagana wasakh waaye fiiriya wasakh waa daciifa xaasida dabadhilifa aan weligiis wax baran fiiri gaaladii caawinaysa marka qaxooti markaad timaadid ilmahaagii oo jajaban. braces, they didn't have access to that, or catheters, or anything like that. Many of our children have difficulty with bowel and bladder continence. To teach them if it's catheterization, if it's orthotics for the ankle foot, orthotics for braces, for accessing wheelchairs to get the wheelchair fitted and ordered, and then they come back here. For that, we try to do it in-house because we can't access it through the community. The biggest challenge is that these families kind of expect us to cure their children, to come here with that expectation that we're going to cure their children, and then when they realize that we can't do that, to kind of see that pain, see that again, and to have to be the one to give them that information is difficult. Many times there's a stigma around children who have disabilities, or anyone who has a disability in certain cultures. We've heard stories of, we're being punished for this, and the child often being isolated. waxay ku leedahay wadamada kale oo ajnabiga ah waxay ka hadlaysaa Afrika Soomaali iyo kale ka yimaada waxay ku leedahay annaga maba ogeynba dhaqankan inay lahaayeen oo qof haduu waalan yahay ama handicap yahay oo lugta ka jaban tahay ama wax ka jaban yahay inayba ceeb u arkaan oo dhaqan xun qofkaas qariyaan ma fahant isagaba dhibaato kale sii galiyaan annaga waxaas maanaan ogeyn fiir dadka cadaanka iyo bani aadamnimada ku hartay la ilaaha illa allah iyaga muslim amal u dhaqmaaya because of their disability. And so part of what I'm passionate about is, again, showing them that your child can still have an amazing quality of life. meesha quruxda la fiiri la geynaa ay ku noolaanayaan. Provide culturally appropriate services too, and understand where families are coming from. Really starting from ground zero, understanding art therapy ala baraya ciyaalkii riiska qalin rinji inta loo dhiib alle u baxsa samee waxyaalo samee waxaas waxay keenaysaa maskaxdooda inay ka shaqeysiiso qof loo baahan yahay inuu iska dhigo oo maskaxdiisa ay u soo noqoto oo bani aadam caadi noqdo. their needs are and what their understanding is. Really asking what's of greatest need to them, because we can have all kinds of assumptions of where they need to go, we need to be, but we need to be respectful of what their needs are. Marta. Our clinic is special because our developmental pediatrician, who is one of the first faces that they see, actually has spina bifida. And so she always wants to be transparent in that. And when there are families who she feels would really benefit from that information, she shares her story. Connect, learn, collaborate. The course through St. Paul's is really helping me to kind of understand where our families are coming from and what struggles they bring to the table, and kind of understanding those struggles. وفهم واركت أملنا عيالك لو عاوناي. Holland Bloorview على ده. Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Canada's largest specialized children's rehabilitation hospital, fully affiliated with the University of Toronto. Our vision is to create a world of possibility for kids with disability. A global leader in the field of childhood disability with over 110 years of experience, Holland Bloorview serves approximately 7,000 children every year. We pioneer treatments, technology. ودختر بقول سنة يا كشقينا ilmaha sida loo fiicnaysiyo niyada loogu dhiso handicap hidayiin PTS trauma hiday qabaan wax walba hal dhakhtar Soomaaliya ma joogo oo anaga saas hal dhakhtar ma joogo hal dhakhtar lugtay ka xiraayaan marka ilmaheeni Therapies and real-world programs that give children with disabilities the tools they need to participate fully in life.
We do this by bringing together clinical practice, applied research, and teaching to create innovative treatments. From nurses to occupational therapists, dietitians to physicians, and child life specialists, our skilled professionals work in partnership with clients, families, and volunteers to provide the very best health care possible. We see children with cerebral palsy, acquired brain injury, muscular dystrophy, amputation, epilepsy, spina bifida, arthritis, cleft lip and cuduradaas oo dhan autism, and other developmental disabilities. wax walba A small number of our clients have complex chronic diseases that require in-hospital medical care. Howland Bloorview is here to help children with disabilities and their families see all of the possibilities that are available to them and to lead happy, satisfying lives. sida loo galay maaragta Holland Bloorview al dhaha Kids Rehabilitation Hospital way wax ka fiican male marka ciyaalkiina saasa loo galaya xayawaankii la caawinaya iska dhaaf ilmo wheelchairs nowadays. ninkan gaalka ah ku sheegaysid xayawaankan handicapka ah uu caawinaya adiga Soomaaliga ana shabeel hayduu maalin magaalada soo dhaxmaro qorye u qaadanayaan way dilayaan dhaqso fiiriya maski waa la dilayaa hadii jidka lagu arko war wax ay dhaaf bisadii waa dhaawacan tahay dhagaxa lagala daala ciyaalkooda yararka intay dhagax qaataan ee bisada dhagax kala daalayaan war idinka diinta maxaa waa idinka maxaa tihiin idinka war Soomaaliya maxaa tihiin dhagax maata cawaan maata oo nacalad adduunka ah. Because today, you will also see some disabled animals that are now using wheelchairs to help them walk and run properly, even in their disabled conditions. Hi everyone, how's it going? This is Richard Aguilar from All About Discovery. And today, we are going to show you the most unbelievable paralyzed animals that use wheelchairs. Waaragta marka qofkii cunugii duwaalaya xayawaan therapy loo geena fiiri xayawaanka loo geena Walking encyclopedia about 200 animals at Green Chimney School. They're very young, they can't take hay yet. Even pot-bellied pigs. We think they're dirty because they roll in the mud, but the mud is their sunscreen. tababara la siinaya fiir cunug ma waalan yahay fiir xayawaanka loo geena niyadiisa dagaysa isaga dhan wuu isbedelaya. In 1947, I was on my way to the University of Montreal with my grandfather in the car and my father in the car. I said, you know what I want to do? I want to open a school for young children on a farm so they can be happy. And I think that'll be a great thing for me to do in my life's career. And then we searched for property. And then finally we drove in the driveway of Green Chimneys. We got 75 acres of land. And by the time I graduated college, we have failed academically, behaviorally, or socially. And on average, we know that the children have been hospitalized psychiatrically twice. So these are children that really are at a critical point. Right? Comfortable? At Green Chimneys, I am lucky enough to be heading the Native years, and I came here after almost 30 years of working in what we call the human-animal bond. This is Hannah. Our occupational therapists, our speech therapists, our mental health professionals, we know how it works and we know how it helps our work here. It just has been so... adiga ma marka gaala caay kara marka adigoo wasakha oo Soomaali oo daba dhilif oo daciifa oo qabiil iyo jaad iyo wasakh iyo xan iyo bullshit mooyaan wax kale Soomaalida waxa arkay niman masaajidka u sii socdo odayaal waaweyn oo masaajidka u sii socda ayaa salaada inay tukadaan waxay ka sheekeynayaan ninka jaarkooda naagtiisa iyo ilmihiisa iyo waxaas ka sheekeynaa xanta war wax mamnuuca waa xanta nacala aabihiin ku yaale wasakh dhashay nacala sinjidin aabihiin iyo hooyadiin wasakh dhashay handicapka xataa masaakiinka ilaahay uu saas u gal xataa ma ka baxsanayo Soomaali fiiri wadan Hindiya waa fiiri wadan kale waa
dadkooday caawinaya masaakiinta ilmahooda ilaahay saas uu u galay adiga maxaa tahay waryaa tuugyo wasakha xaaraanta ku nool Leg to Stand On is a non-profit that helps children with limb disabilities in the developing countries. These are children that are missing arms or legs or have deformed arms or legs. We provide free corrective surgery or artificial limbs. waxa maqdisho jooga oo ilmo lug la gacan la ilkala indhala hadda arki lahayd muqdisho tag adi doing something for somebody else, and when you see the results of your work and how it impacts others, there's no better reward. sida ilmaha loo caawina waa aragtaa adiga laakiin ilaahay uu ku cadaabaya adiga Soomaaliga diinta la baray oo quraanka yaqaan oo haddana aan ku dhaqmeenin adiga ilaahay uu ku cadaabta naartu ku gelinaa meesha ugu xun wasakhiyo daba dhilifka beenta badan leh tuug baatiin tuug beenaalayaal baatiin We know how it helps our work here. beenaalayaal baatiin tuug baatiin tuug baatiin waa nin nacay aniga waxiina nacalada oo hadalka badan leh afka leeyahay wax kale ma taqaanaan nacnac ina qof xamantid wax ka sheegtid wax kale ahaysid male ilmahaagi saasa u gasho waryaa adiga muslimka ilmahaagi saasa u gasho waryaa adiga xaasid iyo wasakha meeshaas ku rafaadayaan oo hinta ka socoto ma aragtaa indhihiis oo inuu ooyaya ma aragtaa lugta ka xirtay aabbaha iyo xaasidka tahay was khaniis ku dhalay wacal dhalay aabiis wasa fiirso waryaa dadka saa u galaysid ilmaha walaalaha saa u galaysid fiir ilmaha walaalaha waryaa fiir waryaa nimanka waaweynka xataa saa u galaysid masaakiinta oo handicapka ilaahay saas u galay fiir waryaa adiga caasiya taa ilaahay naartu ku geliya ilaahan ku baryaa inuu naartu wada geliyo kulligiin xaaraantu dhashay